Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Jarmalka. Ardayda beginnerska ah ama ku cusub barashada luqadda Jarmalka. Lektion 37 casharkeena 37aad. Waxaan ku baran doonaa casharkan possessive pronomen im accusative magacyaalada lahaanshaha ee xaaladda accusative-ka. Waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin maqasheen accusative wuxuu yahay, waxaananu ku baran doonaa isagoo faahfaahsan casharada soo socda. Haddaba isaguna muxuu yahay possessive pronomen ama magacyaalada lahaanshuhu? Haddaba das possessive pronomen drückt einen Besitz oder allgemein eine Zugehörigkeit aus. Haddaba magacyaalada lahaanshuhu waxay muujiyaan lahaanshiyo ama wax uu qof iska leeyahay. Magacyaalada lahaanshaha ama possessive pronomen waxaa loo yaqaanaa waxayga, wixiisa, wixeeda, wixeena, wixiina, saas oo kale. Haddaba marka uu aan ahay ish aniga, possessive pronomenku wuxuu noqonayaa mine waxayga. Do markay tahay adiga, possessive pronomenku wuxuu noqonayaa thine waxaaga. Eya markay tahay isaga, sign possessive pronomenku wuxuu noqonayaa wixiisa, iyo saas iyo si lamid ah. Intaanan casharka bilaabin aan eegno labadan tusaale. Sie hat ihr Deutschbuch dabei. Iyadu way soo qaadatay buuggii Deutschka. Waad arkaysaan sida aan u isticmaalnay possessive pronomenka. Talabaad, wir suchen unseren Parkplatz. Waxaan raadinaynaa parking-kayagii. Parkplatz waxaa la dhahaa badanaa meesha baabuurka lagu parking garaysto ayaanu raadinaynaa. Marka waad arki kartaan sayn u isticmaalnay possessive pronomenka oo ah unseren siduu isku bedelay. Isagoo faahfaahsan tusaalayaasha inoo soo socda ayaan ku baran doonaa. Halkan ayaynu ka bilaabaynaa cashirkeena. Ich bin Halima. Waxaan ahay Halima. Halima ayaa iska sheekaynaysa tusaalayaasha soo socda ee aada ugu fiirsada. Haddaba Halima iska hadlaysa waxayna tiri Das ist mein Mann. Kani waa ninkayga. Ich liebe meinen Mann. Waan jecelahay ninkayga. Haddaba aynu eegno jumladan waxay tahay ish waa nominative subjectiga, waa ficil sameeyaha jumladda, halka meinen manna ay tahay accusative object. Haddaba markuu accusative objectigu yahay ein, articleku wuxuu isku bedelayaa einen. Halkan inooga muuqatana man ayaa waxay isku bedeshay meinen. Haddaba sida halka idinka muuqata, man wuxuu qaataa artikalka der, sidaa darteed wuxuu noqday sida tusaalaha sare idinka muuqata mine. Wixii der qaataa waxay noqdaan mine. Haddaba aynu eegno waxaa dhacaya marka accusative objectigu uu la socdo artikalka das. Halima weli hadlaysa waxayna tiri das ist mein Auto. Ich liebe mein Auto. Kani waa gaadhigayga, waanan jeclahay gaadhigayga ayay tiri. Haddaba maadaama uu artikalka auto uu yahay das, possessive articleku ama possessive pronomenku wuxuu noqonayaa ama uu joogayaa uu ahaanayaa mine. Wixii der qaataa marka hore waxay noqonayaan mine. Wixii das qaataana waxay noqonayaan mine iyaguna. Ha isku qaldina. Haddaba aynu eegna iyadana waxaa dhacaya marka accusative pronomen possessive-ku uu yahay d oo ah feminine dhadig. Weli Halima ayaa hadlaysa ee ha ilaabina. Waxayna tiri das ist meine Katze. Taasi waa bisadaydii. Ich liebe meine Katze. Anigu waan jeclahay bisadayda. Halkan sida idinka muuqata, feminine accusative objectigu wuxuu ahaanayaa possessive pronomenka sida halka idinka muuqata mine. Waanad arki kartaan siduu uga duwan yahay
der iyo das. Aynu eegno bal sidoo kale markaynu ka hadlayno wixii plural amba jamac ah. Das sind meine Kinder. Ich liebe meine Kinder. Kuwani waa caruurtaydii. Anigu waan jeclahay caruurtayda. Xaaladda pluralka tusaale ahaan die Kinder waa wax jamac caruur badan. Wuxuuna ahaanayaa possessive article-ku meine. U nimaadna xaalad kale possessive pronoun kale. Das ist Abdi. Kani waa Abdi. Das ist seine Mutter. Er mag seine Mutter. Tani waa hooyadii. Wuu jecel yahay isagu hooyadii. Ha ilaabin inuu accusative objectigu yahay seine Mutter oo uu yahay feminine dhadig die Mutter. Aynu eegno bal waxa dhacaya markuu accusative objectiguna yahay neutral. Das ist sein Auto. Er mag sein Auto. Kani waa gaadhigiisa. Isagu wuu jecel yahay gaadhigiisa. Sein waxay ahaanaysaa oo taagnaanaysaa on sign maadaama auto uu qaato das. Aynu eegno bal isna waxa dhacaya markuu accusative objectigu yahay masculine amba lab. Das ist sein Computer. Er mag seinen Computer. Kani waa computerkiisa. Isagu wuu jecel yahay computerkiisa. Maadaama oo ay masculine tahay, sein computer waxay isku bedelaysaa seinen computer. Haddaba aynu eegno pluralka iyo wixii jamac ahna. Wixii plural ama jamac ah waxay la mid yihiin feminine wixii dhadig ah ee die qaata. Das ist seine Freunde. Er mag seine Freunde. Kuwani waa asxaabtiisa. Isagu wuu jecel yahay asxaabtiisa. Seine waxay ahaanaysaa oo ayna iska bedelaynin seine. Aynu eegno imikana possessive pronoun ka duwan kuwii hore. Das ist Asha. Tani waa Asha. Das ist ihr Freund. Sie findet ihren Freund nett. Kani waa saaxiibkeed. Iyadu waxay u aragtaa saaxiibkeed inuu yahay. Waxaan rajaynayaa inaad mar hore aragteen oo aad fahanteen objectiga ama ficil lagu sameeyo wuxuu yahay waa Freund. Freundna waa masculine lab. Freund wuxuuna qaataa der. Haddaba iya waxay isku bedelaysaa iran. Haddaba aynu eegno iyadana wixii dhadig ah ee qaataa die. Das ist ihre Brille. Findet ihre Brille super. Kani waa ookiyaale amba muraayadeeda. Iyadu waxay u aragtaa in uu fiican yahay. Maadaama uu dhadig ama feminine yahay, waxay ahaanaysaa oo ay taagnaanaysaa ihre sida ay tahay un. Haddaba marka accusative objectiguna uu yahay neutral amba das uu qaato das ist ihr Haus. Sie findet ihr Haus schön. Kani waa iyada gurigeeda. Iyadu waxay u aragtaa gurigeeda qurux amba inuu qurux badan yahay. Haddaba iya waxa ay taagnaanaysaa oo aysan iska bedelaynin sida ay tahay. Eegno wixii jamac amba plural ah waxay la mid yihiin saynu soo sheegnay wixii feminine ah ee die qaata. Das sind ihre Nachbarn. Sie findet ihre Nachbarn freundlich. Kuwani waa iyada deriskeeda. Iyadu waxay u aragtaa deriskeeda kuwo furfuran amba bulshaawi. Sida halkan idinka muuqata, ihre waxay ahaanaysaa ihre oo ayna iska bedelaynin. Und du adigana waa adiga markaaga mag Freund ma jeceshahay saaxiibka. Deine Freundin ama saaxiibada. Wie findest du dein Haus? Seed u aragtaa gurigaaga. Liebst du deine Familie? Ma jeceshahay qoyskaaga. Sida aan u soo sharaxnay isku day in aad uga jawaabtid su'aalahan. Haddaba aynu halkan isugu soo koobna dhammaan possessive pronoun.
im accusative possessive pronomenka magacyaalada lahaanshaha ee xaaladda accusative-ka. Kala duwanaanshaha keliyaata ee possessive pronomen im accusative-ku wuxuu ku jiraa amba uu yahay qaybta masculine-ka oo keliyaata. Aynu eegnata u horeysa qaybta masculine waxay ahayd markii hore ish markaynu ka bilowno mine waxay isku bedeshay minan, dine waxay isku bedeshay dinan, sign waxay isku bedeshay signan, waxay ahayd ear waxay isku bedeshay iran, waxay ahayd unsa waxay isku bedeshay unsaran, waxay ahayd oya waxayna isku bedeshay oyran, waxay ahayd ear waxayna isku bedeshay iran oo ah ear oo isku bedeshay iran. Haddaba aynu eegno ibung laylis. Haddaba isku day inaad ka jawaabtaan su'aalahan haddii aad fahanteen casharka. Haddii aad khaladid iyo haddii aad saxdidba aniga ayaa commenti ahaan kugu sixi doona kugu sheegi doona say saxda ku tahay. Haddaba ta ugu horeysa mine uncle hat Wagen verkauft. Adeerkay wuxuu iska iibiyey baabuurkiisii. Waxa lagu siiyey tee ayay sax ku noqonaysaa saddexda halka sare ku qoran seine mise signan mise sign. Hal mid oo kaliya ayay sax ku noqonaysaa jawaabtu taas un ku buuxi. Inta aanad ka jawaabin kow waxaad eegtaa uncle article-ka uu qaadanayo. Kadib markaasi ayaad go'aansan kartaa in ay seine amba signan ay tahay. Tusaalaha labaad sidoo kale liebt meel bannaan elton saddexda halka sare ku yaala tee ayaa sax ku ah. Tan xigta morgan basuuq meel bannaan fata beri waxaan booqanaynaa aabbahay. Saddexda halka sare yaala tee ayay jawaabta saxda ah noqonaysaa unsaqan unsaqe mise unsa. Ta xigta find iyo leeqa sideed u aragtaan idinku macalinkiina. Jawaabtee ayaa sax ku noqonaysaa. Iyo ta ku sii xigtoo ah bitte geben Sie meel bannaan adresse. Jawaabtee ayaa sax ku noqonaysaa saddexda halka sare ku yaala. Danke mahadsanid. Waad ku mahadsantihiin intaad i dhegaysateen ee aad i daawateen. Waan rajaynayaa inaad dhammaantiin wax badan casharka ka wada fahanteen. Haddii aad casharka ka heshay fadlan sheer garee oo la wadaaga asxaabtaada jecel in ay iyaguna bartaan luuqadda Jarmalka. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe garee si aad ula socotid casharro kale oo fara badan.